بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wanaagsan daawadayaal waa ayaan la geedii afraxo idinla socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad wadanka TV ku daawan doontaan waxa kamid ah yaa fududeeya qaraxyada gaaraya bartilmaameedyo aysan dadku xitaa mari karin habraaxumo iyo dayacamaan imisa qalad oo qatar ah ayuu sameeyay wasiirka waxbarashada mid kamid ah shabaabkii fuliyay weerarkii xabsiga dhexe oo xoga muhiim ah bixiyay oo ku saabsan qaraxyada xamar ka dhaca ku goday xukuumadii hore ee dhacday ciidamada dawladda oo soo afjaray weerarkii hotel Elite wuxuu qabay weysadii casirka sida uu halkaasi ku tagay Cabdirisaaq iyo guud ahaan sida ay wax u dhaceen ayaad wadanka TV ku daawan doontaan Buntland iyo Jubbaland oo qaadacay shirka dhuusamareeb saddex arrimood oo ay cuskadeen iyo gurigiina jooga ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya iyo qoyskiisa oo ay cabsi la soo gudboonaatay qodobadaasi qodobo kale ayaad wadanka TV ku daawan doontaan waa 17 Agoosto 2020 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tan ha naga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore waxa weerar qorsheysan oo ay sida cad dhinacyo badan isla dajiyeen lagu weeraray Elite Hotel halkaas oo ay dad rayidihii ku laadeen qaarna ay ku dhinteen waxa weerarkaasi oo soconaya in ka badan 5 saacadood haatan la sheegaya in la soo afjaray iyadoo ay dhinteen dad dhan 15 qofood inta xogta lagu hayo yaa sahla qaraxyadan magaalada Muqdisho ayay jidadku inta badan xiran yihiin misna qaraxyada ayaa gaara bartilmaameedyo kala duwan waxaana la isweydiinayaa sida ay taasi ku dhacdo amaba ay ku suura gasho sargaal sare oo ka tirsan ciidanka booliiska ayaa wadanka TV u sheegay habdhaqanka liita habraaca aan xirfadda iyo weliba ka fikridda nafta insaanku ka muuqan ee ay muujiyaan ciidamada u xilsaaran inay ammaanka sugaan tusaale waxa la xaqiijiyay in askarta taagan amaba ilaalisa kontaroolada laga gala liido ay qofkii bajaaj wata ay ka qaadaan lacag dhan $1 kadibna uu iska galaya meesha uu doono qofkii baabuur wata ayaa isna la sheegay inuu in yar uu ku biirinayo lacagta ay bajaajtu ku gudubto sidii arooska ayaaba lagu gelbinaya oo meeshii aad doonto ayaa lagu geenaya ayuu yiri sargaalkan ka tirsan ciidanka waxa intaasi dheer in xitaa la ogol yahay gorgortan oo qofkii cabaado oo sheega inuu $1 oo qura haysto laftiisa waa la sii deynaya adigu kaliya iska jir inaadan waxba dhiibin oo aad gacmo maran la soo istaagta kontaroolka inta badan ciidamada ka howlgala baraha kontarooladu waa noocaas taasoo ay weliba farsamooyinka siyaasadeed ay u dheer yihiin ayuu yiri sargaalkan oo magaciisa ku koobay Maxamed waxaa halkaasi ka muuqata in aanu jirin hanaan ammaan oo qiyam iyo weliba isla xisaabtan ku dhisan iyadoo ay sidaasi baylah ku tahay nafta iyo hantida ummadda maalin kasta lala beegsado weerar aan la fahmi karin sababta loo majiirsanayo meelo uu mujtamacu ku badan yahay waxaa inta dheer habdhaqanka shacabka Muqdisho oo inay arintan ka dhiidhiyaan amaba ay diiradda saaraan ka doorbidaan in ay ka gaabsadaan oo xanuunka ay iskaga adkaystaan waa taa dhinaca kaleetana feejignaan la'aan madaxda dawladda iyo shaqaalahaba waxa ay u baahan yihiin tababar dhanka ammaanka iyo feejignaanta la xiriirta inkastoo wixii rabbi uu qoray aanay ku dhaafaynin haddana waxa muuqanaya habacsanaan wasiirka waxbarashada waxa uu baraha bulshada dhigay sawirro isaga oo ku sugan gobolka Gedo oo ka mid ah meelaha ay argagixisadu ay ku badan tahay wuxuu wataa telefoon smart ah oo lala socon kara meesha uu joogo amaba uu marayo argagixisada waxa ay dad badan ay ku leeyihiin baraha bulshada oo ay ka helaan xogo badan shaqaalaha iyo madaxda qaramada midoobay ee Soomaaliya marka ay safar galayaan waxay adeegsadaan isgaarsiin u gaar ah mana gudbiyaan halka ay joogaan ilaa ay shaqadooda ay dhameystaan wasiirkooda halis amaan ayuu galay oo waxa miino loo dhigay kolonyadiisii qatarta kale oo ay isaga iyo dadkii la socday ay sameeyeen waxa ka mid ah in ay sawirkan idin muuqda qaadeen oo ay baahiyeen argagixisadu waxa ay sahal ku ogaan kartaa marka ay sawirkan eegaan tirada ciidanka iyo gaadiidka ay wateen waata dhinaca kaleetana Mustaf Sandheere oo ka tirsan kooxda shabaab isla markaana hore u dhameysay 5 sano oo xabsi ah sidoo kalena markii uu dib ugu laabtay argagixisada mar kale la soo qabtay ayaa ka mid noqday kooxdii ka qayb qaadatay weerarkii xabsiga dhexe Sandheere oo ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa saraakiisha ammaanka siiyay xogo muhiim ah waxaana la soo xiray 6 qof oo ka tirsan xabsiga dhexe ninkan ayaa dalbaday heshiis ah in aan loo celin xabsiga dhexe oo la geeyo goob kale si uu u dhiibo warar
warar qarsoodi ah oo ammaanka ku saabsan. sidoo kale waxa uu sheegay inuu cabsi ka qabo haddii xabsiga dhexe lagu sii hayo in la dilo, waxa ayna taasi sababtay in loo wareejiyo xerada ciidanka asluubta oo ku taala kilomitir 7 oo ah agagaarka ex control afgooye. 9 qof ayaa la xiray, 6 ka mid ah waxaa sheegay Sandheere, waxayna ahayeen dad aan laga filaynin falkaasi. si faahfaahsan ayuu u hadlay, laakiin lama hubo oo waa la baaraya iyaga dhan, ayuu yidhi sarkaal ka tirsan ciidanka asluubta. ninkan ayaa sheegay in qaraxyadan oo iminka aad u soo badanaya ay ka dambeeyaan saraakiil ka tirsan xukuumaddii hore dhacday. sidoo kale sarkaalkan ayaa sharci darro ku tilmaamay Sandheere oo shabaab ah in loo wareejiyey xabsiga kilomitir 7, isagoo sheegay inay halkaas ay aad uga dabacsan tahay xabsiga dhexe islamarkaana uu ka baxsan karo. weerarkii xabsiga dhexe ee dhacay isniintii toddobaadkan ayaa u muuqda in ay ka qayb qaateen xubno muhiim ah oo ka tirsanaa xukuumaddii hore oo dhacday iyo saraakiisha ciidanka asluubta Soomaaliya. waxa uuna noqday hadalhaynta ugu weyn ee magaalada Muqdisho. waata dhinaca kaleetana ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku guulaystay in ay soo afjaraan weerarkii Hotel Elite islamarkaana soo badbaadiyaan dadkii ku sugnaa gudaha, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar Cumar. afhayeenka ayaa sheegay in xoogagga sida gaarka u tababaran ay soo afjareen go'doomintii 4 saacadood qaadatay ee lagu hayay buu yidhi Hotel Elite ee Muqdisho kadib markii la dilay kii ugu dambeeyey. ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya ayaa soo afjaray go'doomintii 4 saacadood qaadatay ee lagu hayay Hotel Elite ee Muqdisho kadib markii la dilay kii ugu dambeeyey, ayuu yidhi afhayeenka oo hadalkan ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. qoraalkan ayuu ku yidhi ciidamada amniga ayaa ku in ay soo afjaraan howlgal ay ka sameeyeen hotelka, waxa ayna soo badbaadiyeen dadkii ku go'doomay hotelka. baaritaano ayayna samaynayaan. Ismaaciil Oronjo ayaa qoraalka ku xusay in wixii macluumaad ah ee ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi uu dib dadka kala soo wadaagi doono. faahfaahinta khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee weerarkaasi ka dhashay waan idinla wadaagaya, ayuu yidhi Ismaaciil Oronjo. inta la ogyahay ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi, halka ku dhowaad 30 kalena ay ku dhaawacantay, waxaana loo malaynayaa in khasaaraha uu intaasi ka badan karo. mas-uuliyadda weerarkani ayaa waxaa sheegtay kooxda arxanka daran ee shabaab ee dalka qalalaasaha ka wada. qoraal ka soo baxay ayay ku sheegeen in bartilmaameedka u ahaa hoteelkaasi uu leeyahay xildhibaan Cabdulaahi Maalin Nuur oo xubin ka ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. waa weerarkii ugu horreeyey ee sanadkan lagu qaado hotel ku yaala caasimadda Muqdisho, kaasoo ku yimid habacsanaanta amni ee labadii bilood ee ugu dambeysay laga dareemayay magaalada. waata dhinaca kaleetana weli waxa aynu ku jirnaa khasaaraha ka dhashay weerarkii ka dhacay magaalada Muqdisho. anigu waa nabad qabaa, wax dhaawac ah oo i gaaray ma jirto, ilaaha u naxariisto saaxiibkay Cabdirasaaq Cabdi Cabdulaahi. saacaddu markay ahayd abaarihii 4 oo rubacla kadib salaadii casir ayaa waxa ay soo wacay Cabdirasaaq Cabdi oo ah saaxiib aan aad isugu dhoweyn oo inta badani gelinka dambe iyo fiidkii aan wada joogno. wuxuu ii sheegay in wasaaradda warfaafinta agaasima waaxidyada uu ka mid ahaa uu ka soo rawaxayo uuna doonayo inuu qaxwo u raadsado Elite Hotel. wax yar kadib waxuu iga soo maray aqalkayga isagoo oo wata gaarigiisa. waan israacnay sheeke iyo iswaraysi kadib waxaan gaarnay Elite Hotel. waxaa jira kursi aan aniga iyo isaga aan si gaara u fariisanno. Cabdirasaaq waa nin aad u xiriiro badan. intii yareed ee aan fadhinay waxa uu taleefon kula hadlay 3 ruux, wariye Faysal Muuse oo Turkiga jooga, agaasime Cabdiraxmaan Al-Cadaala iyo Senator Ayuub Ismaaciil. wuxuu ii dhiibay Senator Ayuub oo aan taleefonka siyaasadda kula kaftamay. markii aan taleefon ka dhigay qaxwii aan dalbanayna aanu nolo keenin ayaa mar kaliya waxaa korkeenna ka aragnay holac sidii hilaaca oo kale ah, waxaana xigay jug dhaguhu ayna oodmayn. intaa kuma ay ekaane waxaa isqaabsaday rasaas dhinac walba ka imaanaysa. Cabdirasaaq kursigii ku fadhiyay dabeesha qaraxa ayaa la tagtay. kuraasteenii ayaa isku dhacday, waxaana xasuustaa inaan gacanta ka qabtay. ayuu iska kayfilgay. wuxuu u cararay dhankii laamiga ee xabadda xoogga badani uga socotay. inkastoo ay adkeed in la kala garto halka ay rasaastu ka xigto. nasiib darro saaxiibkii Cabdirasaaq waxaa haleeshay rasaas kaga dhacday wadnaha. dibadda ayuu u baxay isaga oo dhaawac daran ah. daqiiqado kadibna wuu geeriyooday. ilaahay ha u naxariisto, jannadiisana
ha siiyo weysadii uu salaada casir ku tukaday ayuu qabay. sida ay wax u socdaan iyadoo wadnuhu sida durbaanku ii garaacayo, waxaan gacanta ku qabsaday labadii taleefan ee aan watay, waxaana goostay in aan ka boodo gidaarka dhanka xeebta oo noo dhowaa, laakiin rasaasta ayaa aad meel walba uga dhacaysay. go'aan baan qaatay, waxaana u booday dhanka badda. funaanad aan xirna oo cagaar ahayd ayaan iska bixiyey sababtoo ah midabada qaar sida casaanka iyo cagaarku dadka badan ee cararaya waa laga dhex toogan karaa. waxaan xeebta isku helnay odayaal iyaguna baxsanaya oo uu ka mid ahaa wasiirkii hore ee beeraha dowladdii kumeel gaarka ahayd, xildhibaan hore Caraale, ilaahna waa na badbaadiyey. waxaan isku dayey inaan nolol iyo geeri helo saaxiibkay. waxaa la ii sheegay in dhaawac daran uu ahaa oo la qaaday, waxaa la dhigay isbitaalka isbitaalkii ayaan ugu tegey, laakiin waxaa la ii sheegay inuu u geeriyooday rasaasii haleeshay. waan aamini kari waayey ilaa aan meydka marxuumka indhaha saaro. lugaha dhulka waan ku hayn kari waayey, ilin ayaana wejiga i buuxisay. cabdirasaaq waxa uu ahaa nin cibaado badan, maalin kastoo isniin iyo khamiis ahna wuu soomi jiray. qadartiisa ayaa meesha ku ekeed. dumaashi, hooyo, qoyska dhammaan ilaah samir iyo iimaan ha ka siiyo. qof kasta wuu dhimanayaa, qadar baana loo dhintaa. ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto, inta dhaawaca ahna allaha shaafiyo. waa tahay war aan rasmi ahayn oo aan goordhow ka helnay dhanka Garowe ayaa xaqiijinaya in labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland ay qaadaceen imaanshiyaha shirka dhuusamareeb, iyaga oo ka biyo diidan 3 arrimood oo kale ah: in aanay jirin xukuumad iyo ra'iisul wasaare sii wadi kara natiijo kasta oo ka soo baxda shirka dhuusamareeb, in hadalkii madaxweyne Farmaajo ka jeediyey golaha shacabka uu ahaa mid wadada ka leexinaya natiijo lagu camal falo oo ka yimaada shirka dhuusamareeb, in aan kalsooni lagu qabi karin madaxweyne Farmaajo markii la fiiriyo tallaabooyinka uu qaaday shirkii dhuusamareeb 2 kadib iyo weliba habdhaqankiisii xifaaltanka shirkaasi. waxaana sargaal sare oo ka tirsan maamulka Puntland uu sheegay in iyada oo aan arrimahaasi oo dhan xal looga gaarin ay adag tahay in laga soo qaybgalo shirka saddexaad ee dhuusamareeb. labada hogaamiye ee Puntland iyo Jubbaland ayaa xilligani kala jooga Nairobi iyo Djibouti, walow Siciid Dani uu xalay soo gaaray Garowe. siyaasiyiinta iyo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in aanay xaaladdu ka fursan doonin soo faragelinta beesha caalamka mar haddii kalsoonidii madaxweyne Farmaajo iyo xubnaha maamul goboleedyada qaarkood ay shaki gashay. ugu dambeynna ra'iisul wasaarihii hore ee Ethiopia Dr. Hailemariam Desalegn ayaa lagu amray inuu gurigiisa ku sugnaado isagoo qoyskiisa wehelinaya. sababta ayaa lagu sheegay taxadar laga muujinayo cudurka corona oo soo galay xayndaabka hoose ee hogaamiyihii hore ee dalka Ethiopia. madaxii ciidamada ammaanka ee ilaaliya ayaa laga helay cudurka corona ayuu soo qoray Dr. Hailemariam Desalegn. aniga iyo qoyskayga waxaana la geliyey isgo'doomin ilaa inta nala ka baarayo, balse waxba waana la ka waayey ayuu daba dhigay isagoo guriga sii joogaya inta ay ka dhammaanayso muddadii huuriska ahayd. qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. inta aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxaan kaga tegaynaa guul iyo gobonnimo.